garabkayga midig waxaa fadhiya Siciid Cali Maxamed oo dadka reer Goldabog iyo sidoo kale dad badan oo wajigiisa si gaar ah u yaqaanaan ay ula baxeen Babalof Babalof wuxuu ku nool yahay magaalada Goldabog ee xarunta gobolka Mudug Babalof bal waxyaabaha sida gaarka loogu xasuusto marka wajigiisa la arkana waxa kamid ah qiso jacayl oo runtii aad u xanuun badan oo soo martay iyo sidoo kale waa dadka inta badan ka madadaaliya halkan si gaar loo yimaado Babalof goobta uu markaas fadhiyo sida aan maanta arkayay waxa isugu imaanaya dad gaaraya dhowr iyo 40 qof ka bacdina uu ku qoslinaya oo sheekeynaya hadaba Babalof bidaan media si gaar uga soo muuqanaya waxaan ka wareysan doonaa bal sababaha Babalof lagu bixiyay iyo waxyaabaha sida gaarka ugu caanka aan ku qabanaya horta sharaf ay tahay bidaan media oo aan la socday oo isaaran tahay gambalku saaran yahay in ay mataqaanaa halkaasi ay maanta ugu waraysanayaan Galdogob horta ku soo dhawaada Galdogob waa magaalo ka tirsan Puntland waa soo dhawaanta aad baa lagu yaqaanaa marka sharaf ay tahay raggan daawan jiray maanta inaan ayagoo marti mataqaanaa ku ahayn Galdogob reer Galdogob inay maanta ila joogaan marka taasi ilaa ma iskale way Babalof maxaa lagu bixiyay horta Babalof waxa lagu bixiyay waaga hore waxa ahaan jiray nin jacaylka falanqeeya nin taqaana jacaylna ku dhacay waxyaabaha sida gaarka loogu xasuusto Babalof waxa kamid ah qiso jacayl oo runtii aad u soo martay kal hore intaan wareysiga qaadan oo iska wareysanay muddo wuxuu soo maray maraaxil kala duwan oo ku kalifay heer inuu gaaro inuu noloshiisa ku sigto inuu isdhaafiyo isaga ayaa qisadan inooga sheekayn doona bal maraaxilkii kala duwan la soo martay markuu ugu dhacay kadib dadka ka dhaxay kadib dhalinyarada ka dhaxay markaas kadibna halkaas jacaylkii baa mataqaanaa igu sameeyay hadaanan ahayn nin islaam hadaan ahayn gaaladu marka taqaana stress ku dhaco ma aaminsana mataqaanaa ilaahay uu istilaan laakiin anigu diinta islaamka ama ku fakaday gabdhos 2 sano iyo bar ilaa 3 sano adiga 3 years all waa waxaan jeclaa gabadhina saaxiib waa liga gursaday nin qurba ka yimaaday baa ku yaacay isku family ahaayeen aniga marka hadda waxaan ku yiri jacaylkii halkaas oo ku guul daraystay marka hadda waxaan aaminsanahay ilaahay baa aaminsanahay marka waa saas laakiin waa markaan qaaday labadeena isla doontay oo man carafi lahaaciyo macnaha waxa waaye macnaha waa aniga adiga waa la doortay laakiin waa isweyn marka mid kale waxay ahayd markaan ku waayay ayaan dhilaqsaday markaan ka hanjabay ayaan licifoobay markaan aniga adigu aan isweynay ayaan adduunkiiba noloshiba macna yeelan weysay marka hadii aan adiga ku waayay nolosha wax adduunka wax macna iimaan lahaan marka taasna ay lootirkeedana waan iri marka waa saas waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Babalof waxyaabihii inta jacaylka ku jirtay kuugu dhibka badnaa asdhihi karaysa saameyn gaar ah noloshaada ku yeelay jacaylkaasi xasuusreed baad ka reebtay maxaa kamid ah horta waxa kamid ah habeenka aan gabadha aan la baransanaa ayaa waxa loo doonayba nin loo doona kadib gabadhii markii aan isiri wacdina 12 habeenkii waa wacayay waa laga qaban waayay markii dambe ima soo jawaabeen wiil ayada walaalkay bay soo jawaabay wuxuu ugu yiri warniyahow gabadhii waa la doona anigii muddo wiig ah baa waxaan ku jiray Christlof ku jiray halkaas waxaan ku yiri baan iska taqaanaa fikrayay waxa hadana taqaanaa igu naxinta badnayd markii arooskeedii uu dhacay mataqaanaa wiigii aan balansanayn inaan ismehersano hadana waxa igu naxin badnayd markii aanu iid soo aaday arkay ayadii iyo mataqaanaa iyo loofkeedii oo hadana ay soo ila galeen waxa igu naxinta badnayd hadana ka sheekeeyo markii aniga oo mataqaanaa u socda kubad u socda hadana aan gurigeedii biyo qowliga soo siiyay waa waxyaalaha hadana waxaan ka sheekeeyo noqonaysa saacado inuu taqaana qaato marka taasna waa mid badan marka waxyaalo badan way jiraan hadda mataqaanaa ayaga laftirkooda ah oo hadda ayaga laftirkoodana mataqaanaa ah in inta kuma kis jecel yihiin waxaan ku baaqayaa halka iga daawanaya jacaylka jilaya jacaylka 2 sano jacaylka 3 sano jacaylka 1 sano iska dhaafa inta mataqaanaa isu gashiin kala faa'iideysto oo carruurta dhala oo waxaan ku yiri sida anigu dhacdo kale iyo dad kale qoray waxyaalo badan qoray
yaa yuusan ku dhicin. dabcan waxaad sheegtay in aad ballansanaydeen wakhtigiina la waxeeyey ma lacag bay kaa raacday mise yacni iyadii baa isbeddeshay oo runtii noloshaadii ku qanci weyday bal waxaad iyada noo faahfaahaysaa maadaama aad ballansanaydeen sababta markiiba iyada beddeshay. horta saaxiibow wuxuu dee faamili ay yihiin way wadhi badan yihiin nin faamiligada oo yihiin ilmo adeer baa wuxuu ka yimaaday dalka Mareykanka kadib halkaa markuu yimaaday dadkii faamiliga dhan baa ku qasbay marka waagi hore hadda markaas 2016 bay ahayd waagaas waxaa jirtay duciya habaar mid dooro hadda laakiin barnaamijkaas waa loo gudbayo waxaan filayaa ninku hadduu gabadha jecel yahay inuu mataqaanaa oo ka faa'iidaysto oo uu doono marka hadda adduunkii oo dhan baa hadda wuxuu noqday mataqaanaa kunbuu noqday oo social media la iskala socdo tan kale adduunkii baa hadda mataqaanaa wuxuu noqday ilbaxay marka hadda waxaan isdhahayaa maadaama qaaradda Afrika la dhihi jiray waa qaaradda saddexaad adduunka hadda koobaa noqonnaa marka asaas waayahay jacaylkii talow hadda ma kaa baxay ma ku sii hayaa iyadii markaa aragto maxaa dareentaa noloshaada saamayn intee leeg buu jacaylkaasi ku yeeshay maadaama aad maraaxil fara badan oo adag aad soo martay hadda wakhtigan la joogo. niyow horta hadda been ku sheegi mayee ma aaminsana jacaylka yani muhiimadda waxay tahay markaan ku khasaaray ayaan ka hanjabay hadda marka dagaalka ugu badan aan qaadaya waxa waaye maadaama qurba joog ay jacaylkayga dhaafisay inaan gabar qurba joog aan qabto oo hadda mataqaanaa halkaasi aan qabto marka hamigaygu waxa waaye inaan gabar qurba jooga inaan qabto gabar mataqaanaa halkaas qurbaha ka timaada dhac ku siisto hadhowtiida markaan beri tago ama aan tago Washington ama aan tago mataqaanaa Melbourne tago ama aan tago London tago ama aan tago mataqaanaa Toronto tago inaan ka sheekeeyo oo taariikhdaas ay noqoto by history ay noqoto marka waa saas laakiin anigu waxa hadda aan hadda Soomaaliya jacaylku malihi inaan ka samaystano ma rabo marka kiibaa iga dhex gooxaya marka waxa la yiri nin oo ku taagan yahay nin masku taagan yahay dhiqma yeelayo waayahay Baba Love oo loo soo gaabiyey aabbaha jacaylka dabcan heesta si gaar ah niyadiisa uga baxaysa waxa weeye hebla waa la guursadayaa nin kale ay u hooyatayaa yahay Baba Love markuu jacaylkii ku dhacay dabadeed waxa uu bilaabay inuu dadka si gaar ah ugu sharaxo sida loo labisto sida gaara mararka kala duwan goobaha xafladaha iyo sidoo kale marka suuqa soo aadayso labiska sida gaarka loo xidho isagana taas waa oo isaga gaar inoogu sharaxaya qaybihii jacaylka si gaar ah aan uga baxno waxaan rabaa Baba Love waxyaabo kale ayuu caan ku yahay sida inuu dadka ka majaajiliyo inuu u faa'iideeyo waxyaabo fara badan sida khamiiska loo xidho sida dabaasho kale waa khabiir weyn oo dhanka ku takhasusay marka waxaan rabaa bal inuu inoo sharaxo isaga laftigiisa oo si kooban sida khamiiska loo xidho oo kale waxyaabaha uu dadka kaga qosliyo iyo talentiga kale uu leeyahay. horta khamiisku waa 2019 aan soo galiyay videogaas in la helina oo maynaya horta waxyaalaha waxa arkaysaa khamiiska markaas ka bixinaysid midna waa mid aad iska bixinaysid oo inta
baabalof waa yahay waxaan rabaa hal sheeko oo aan dadka kaga qoslino ku soo gabagabayno in halkan kaga tagto horta waxaa israacay horta sheekada ka sheekada sheeko qosol meelaha horta 21 baan baadiye tagay markaan baadiye tagay baa waxaa islahaa marka anigu wiig baan joogay xilligan oo koreen ahayd xilli samara oo haddana mataqaana waxay ahayd mataqaana roob da'ay markaan tagay baadiyihii baa waxaa isra alla ilaahay waxaa u qaatay boorso baan u qaatay waxaa isra baadiyad u socotaaye bal meesha iska dhis niyo waan tagay meesha markaan tagay hadhowtii baadiye markaan meesha aan tagnay habeenkii horta maalintiiba waxaan la kulmay gabar baan la kulmay gabadhan ku abba ay saa tahay sidii waraan dhakhtar baata saako abba macanto xagee ku imaasatay abba ay haydhiin bay tiri macantana haydhiin abba ayano abbayada mihi macantana deeno xaaskaaga mihi bay tiri hadhowtii waxaan ku idhi caawa baan ku imaanayaa waxay tiri urniyo caawan ku imaanayaa wadiga dhahaye waxay tiri ma mataqaana argaad ila xariinaysaa maxaan ku dhahaa ma tiraad markay labada diiday maxay ogolaatay waxay ogolaatay guure baadiya inta badan waa soo guuraya markaan meeshii aan tagay baa reekil aadayay waxay og dhaheen waxay jirtaa wax yar saa u soconay 5 bas soconayaan ku wallaah markii dambe meeshii tagay waxay walaal ku badnaa waa soo dhac dib ani wiil ila socday hadawtii marka ani wiilka aan soo dhacanay baba ma yadee macnaha gabar walaalaheeda macnaha baa jooga moota waa soo guuraya baan gabadhi waxa soo qabtay baatiga soo qabta ilaa waa ka ceebba sakir baatiga ma soo qabtay inaan kiciyaan rabaa moota mobile ma jiro de mobile wixii maysid moota hadawtii gabadhi markaan aan la hadlano odayga soo booday odayga markuu soo booday waan hayq waxaan ribadi oo taqaan moota waxay istaas gal toori mataqaana bada soo qaataan بس اسفنيا ما waxaan isra alla ilaahay mididaas ama waxaan isra lagu sifaya oday wuxuu adeer xaran sidii adeer xaran maxaa aabo dhaay saabitri wiilka animi u qabaabay tiri adeerti waxa dhacday marka soo baxnay baa dabca ina ordo qodaxa imaday gabadhii waad shukansatay masaxaajo kala gashay ma gabadhii adigu laba jeer markaan la hadlay baadana adigu wuxuu ku yiri aad maartay gabalada ma macnaheedu waa shaqas ka dhamaado hadhowtii markaas kadibna hameenka dambana gaaf baas ku tagnay meel intaqaana gaaf ka jiray ayadoo marka gaafkii u socdo baan wax ka qaaday yartahay tooqaagu waa dahabe haay dadkuna waa inuu dareemaaye haa saalima ma yaqaan ajada igu cumbaali marka shaqaska baadiyada ina baratid kan magaalada abratid mataqaana miyi magaalada abratid waa soo dhigay youtube-kayga arfanaan baabalof baan soo dhigay marka in ayada dadka lala socdo weeye marka waxaan dhihi lahaa intaba halala socdo marka sheekada qisadaas kuula yaab badnayd gabadhii ma intii jacaylku ku dhicin baa intii jacaylku ku dhacay war ma yadee ayada asaga la tarkiista shukaansi wuxuu ahaa branki baa moogtay markaas way sheekada ay laga sheegay branki baa ahayd inta sarki doona waa maasintii mar kale